عشان كنا نصرمتها واحد لا حنيان تيبا لا حنيان محل خطرت هيدي يا ايوه والله الله اكبر جزاك الله خير ان كالي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. maanta ay taariikhdu tahay 26 safar 1400 hijriya oo ku beegan 12 bishii 9 2023 waxaan ka soo baxnay magaalada Bohol waxaan u socday Hoog docoshaan soo marnay markaan docosha mareynay ayaa wadadii Hoog ayaa kaan barnay waxaan soo galnay wadada aadaysa xargaayo calool waan joognaa xoogaa gumaysi iyo goori marka xaalad amni darrana way jirtaa waxa weeye dadkii walaalaha halkan la deganay ma xaalad amni darra baa la soo diristay waa la kala baqayaa waa la kala khayrsan yahay marka saas darteed nimankan oo maxay Cabdi Faadil la yiraahdo iyo ninkiisa oo maxay naga dambeeyay hadda oo niman dhulbaanta ah Faadil waa nin dhulbaanta oo jaamac siyaada ayaan bacdu taagnay anagoo dareensan inuu noqon karo noocaasa marka waxa weeye uu noo yimi waxa weeye wuxuu ambad baatiye dib u noqdo waxa weeye meesha ka timaadeen noqdo wadadii buu noo saxay namu dhibaatayn isku manay deyin manay hungureen inay dhibaateeyaan annana saasi lamida marka runtii taasi waxay ka tarjumaysaa walaaltinimada dadka ka dhaxaysa dadkani waa dad walaala ah muuqaalkan runtii waxa weeye anaa jeclaystay diiwaan geliya dhacdadan runtii tusaalaha marka waxa weeye halkan baaq waxaan qadaraynaa labada dhinac baaq waxaan qadaraynaa deegaankan dadka meelaha deegaan Sacad Yuunus iyo meelaha dhulbaanta u deegaan gaar ahaan dadkan jaarka ah ee walaalada ah ee reer guuraaga ah ee reer miyiga reer suugaaliya waxaan leenahay idinku walaalati yaana idin saameyn wax kastoo dhacaya dagaal kastoo dhacayaanu idin saameyn waxa weeye waxaan leenahay dadkaa nabad ku wada noolaada sidii aad nabad ugu wada noolaydeen ugu wada noolaada bari ka maalin waxaa dhici kara qof ka mid ah waxa weeye qof dhulbaantaaba sidaydaasoo kale u geli kara deegaankan Sacad Yuunus hadday la kulmaan Sacad Yuunus saas waa inay u badbaadiyaan oo aanay u dhibaatayn oo ay waddadii u tusaan bale nabadgeliyaan oo ay magan geliyaan gaariga waxa wata Cabdimaal Muuse Codon iyo odayaal kale dhulkay wadaan waxay ka yimaadeen meesha la yiraahdo Bohol docosha soo mareen halkay ka mari lahayn wadadii dabagodood ee fadhiyan iyo godheeli waxay qaadeen wadadii calool ee aadi jirtay Yogoori iyo meesha la yiraahdo Guumis ilaahay baa waafajiyay gacanta loo taageen naw halkaan la calool waanu nimi waxaan ambad baanu nahay waxaan nidhi waxba yeelin mayno halkan khatar baa ku sigateen dib u noqdo wadada docosha ku noqda dadka noocaas oo kala ah ee wadooyinka la lumayaan ama reer magaalka ama miyiba ha noqdeen dayoobaya ama kuwa xooluhu kala gelayaan shaqaaqadaas inay saamayso maadaama siyaasad maraysay inay dadka kala saamayso ee shacab weynaha ah aan kala maarmayn ee dhaleeyada ee ehelka ee xuduudda dhulka isugu yaallo waxa weeye in aan la moodin inaan colaadu way dhammaanaysaa nabad baa ka dambaynaysa arrinkaa waxa weeye dadka shacabka anoo kale waxaan xusuusinayaa iyo wixii siyaasadda marka ay la fogaatay ee meel xun marinayaba inay nabadda ku soo dabaalaan dadka la badbaadiyo baaqiga xooluhu way isu gelayaan la kala maarmi maayo roobkaa ka dhexeeya iyo dhulka iyo beledka iyo biyaha iyo cawska iyo biyaha iyo waddooyinka waxaan codsanayaa sidaasoo miidhan dadku ehel buu yahay ehelnimada in la ilaaliyo nabadda lagu soo celiyo oo shaydaanku intii hore uu galaaftay wax ka dibaya aan lagu darin odayaashaasna waddadii baa la soo luntay waddadii oo saxnayd oo docoshan waxaanu ku noqdaan ka gelayseen dibco iyo dhakhtarka u socoteen adiga magacaaga dhamaystir Cabdi Maxamed Xasan ما شاء الله.